بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمان والله صوماليات سلام كدب وحا مهد إسكالي الله سبحانه وتعالى. بعد الحمد لله وحان سيقار ومهد علينا إيغانا والله محسنين تأه يسمى فلاياش كوحين هيدا المستقيم ورنتي هوري وكفالة قاضي قار كميدة أغوانتا أن قعنتا كوهينو وحا مانتا أن هالكا أصول في الإستي إن أن لو داو والله صوماليات in aan qabanay lambar runtii fara badan oo cusub oo agoon ah waxa ogsoontihiin sidaan oo kale sanad bilowga sanad dugsiyeedkan in ay la wadaagnay caruur agoon ah oo aan qabanay alxamdulillah qaar kamid ah waa la kafaalo qaado waxbarashadooda qaar kalena waa ay dhimayeen iyadoo sida waxaan ku dhahay horay u joogeen agoon aan la kafaalo qaadin ayaa haddana teeramkan intii fasax lagu jiray iyo labada isbuucad iskuulka u furnaaba waxaan diiwaan gelinay agoon kale oo cusub taasoo runtii sababteeda aad dareemi kartaan baahida waxbarasho ay qabaan agoonta ay tahay iyadoo qoysaskooda maxaan ku dhahay aysan awoodin qarashaadka iskuulka maadaama ay la dhacayaan xaaladahooda kale nololeed marka waxaan rabnaa insha Allah in agoontaas la soo garab istaago oo waxbarashadooda la kafaalo qaado runtii agoonka halkii agoonka kafaalo qaadkiisa waxbarasho waa maalinkii $1 bishiina $30 sanadkiina $360 mar walba ayaan ka maamul ahaan idin wadaagnaa taasoo ah ardayga fiigii iskuulka buugiisii qalinkiisii iyo uniformka oo joogto ah markaas dhankaas markii laga soo tago dhanka oo samafalayaasha agoonka kafaalo qaado kale ayagana waxaan sidoo kale si gooniya aan ula socodsiinaa agoonka kafaalo qaadin waxbarashadooda su'aal ahaan oo kale xaaladda waxbarasho heerka uu maraayo sidoo kale sanadkii waxaan la wadaagnaa natiijada ardayga waxaan sidoo kale la wadaagnaa haddii ay la soo darsaan agoonkaas wax ka baxshan waxbarashada sida caafimaadka iyo waxyaabahaas oo kale qofka marka haddii uu awoodo waxaan marka halkan sidoo kale ka ballan qaadaynaa qof walba oo runtii kafaalo qaad agoon in agoonkaas xaaladiisa waxbarasho iyo xaaladiisa kaleba ay si joogta ula socon doonto natiijooyinkiisii ardayga maxaan ku dhahay xaaladiisa kale dhammaan guud inuu la socon doono taasoo aan ugu dan leenahay in si hufan ah shaqadii iyo mas'uuliyadda agoonta awgeyn aan iskala wada qayb qaadano waxaan rabnaa marka caruurtan agoonta ah lambarkii horey oo qaybtii ka hartay iyo hadda kuwa aan diiwaan gelin cusub in la kafaalo qaado waxbarashadooda runtii kafaalo qaad markii la dhahayo agoon waa ajir weyn ayay waxaan ku dhahay ay xambaarsan tahay bal hal mar faa'iidooyinka laga helayo ila daawada نبي وحده عليه الصلاة والسلام حديث عجيب بدن أنا وكافل وكافل اليتيم أنيجا أجون تقفك كفالة قاضة كهاتين في الجنة لبضع سفراد سقوقتي وحوله أنا سجى جنازة ساسا سجود الجنة أنا جوري رسولك أسكور الجنة وعجيب قفا وحيويدي الشيخ جوري رسولك حال إن ما لسجد الجن كلام يسألنا عيب بدن حديث كحوم عدينا لنا عيب بدن قف بدن عك جد الجية لكن هذا رسولك جوري يسأل كل الجنة رسولك ندرس لنا قط يا بهلي كلام ودرجات وصار سوا أنا جنازة درجوني كلا الله هاي رسولك وحكله يا جنازة سانا سوون قنينا معناه ماشي أنا أنجوجا جنازة كسو جلسة وحيلي كلام الله لكن وأقول إن كفالة قاد سيد عرقتين ما شاء الله رنتي وفضل وين أجر والدنيا قرب اللي ولي بنايو وحاد لنا soo tartama qeyrka sida uu sheekhu noo sheegana waxaan ku dhahay hal kafaalo qaado waxbarashada carruurta agoonta aad u santiin Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan carruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa